وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمadu wixii la odhan lahaa way yidhaahdeen. waxaan sii xoojinayaa un intii la sheegay. ugu horeyn nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay abghadu nnaasi ila allahi halaath. ilaahay dadka ugu necab yahay dadka saddex weeyaan. waa saddex dunuub waaweyn galay marka gaalnimadii waxaa laga yimaado. abghadu nnaasi ila allahi halaath. ka koowaad nabigu wuxuu ku tilmaamay mulxidun fi lxaram. dunuubta waaweyn ku gelaya xaramka gudihiisi. dembigu weynidiisuna waa dembi. in xaramka ilaahay lagu sii sameeyaana waa dembi labaad. kaasi wuxuu ka mid yahay buu nabigu yidhi saddexda ilaahay ugu necab yahay. waxaa kaloo saddexdaa ilaahay ugu necab yahay ka mida buu nabigu tilmaamay mubtagin fi lislaami sunnata aljaahiliya. qof islaamka dhexdiisa ku rabo wadadii jaahiliyada inuu wado, dhaqamadii diinta kasoo horjeeday, weli raba inuu islaamnimada sii dhex wado. waa muslim, islaamnimadiisi wuu haystaa, laakiin haddana wixii jaahiliyadu ku dhaqmi jirto weli guntiga ku sitaa oo wuxuu rabaa dhaqankaasi inuu socdo. waxa aad moodaa inagu ka soomaali ahaan dad muslimiin ayna abcan jaddin ahayn. inta taariikhul soomaaliyeed la garanayo dad soomaaliyeed muslim bay ahaayeen. soomaali diin kala haysata maynan maqan. intaa muslim ha ahaadaane haddana waxaa jira dhaqamo diinta aada uga fog waynu dhex wadnay oo reeraheenna iyo qabaa'ilkeenna iyo dadkeenna sitaa oo wuxuu rabaa dhaqankaasi inuu socdo. waxa aad moodaa inagu ka soomaali ahaan dad muslimiin ayna abcan jaddin ahayn. inta taariikhul soomaaliyeed la garanayo dad soomaaliyeed muslim bay ahaayeen. soomaali diin kala haysata maynan maqan. intaa muslim ha ahaadaane haddana waxaa jira dhaqamo diinta aada uga fog waynu dhex wadnay oo reeraheenna iyo qabaa'ilkeenna iyo dadkeenna u ahaa xeerar. dhaqamadaasi waxay keenayeen inaynu ka mid noqonno markaa kuwanuu nebigu sheegaya uu leeyahay mubtagin fi lislaami sunnata aljaahiliya. dad islaamnimada ku dhex raadinaya wixii jaahiliyadu ay lahayd. masaa'ilkan uu sheekhu sheegay cabdinaasir maalan magahan iyo waxa ku saabsan iyo xeerarka aynu ka dejisanay dee waa islaamnimadii aynu wax kala dhex wadno. markii la iswacdiyey waxaa la isu sheegay waa jiraan hadda reero soomaaliyeed oo cuqaashoodu intay shuru qabatay isu yimi. marka masaladu taagantahay haddaad tidhaahdo samaa lagu fulinaya waxaa laga yaaba inaan dadku aqbalin ama dad badani waxaana caadaynoo ahaan jirtay waa la wadayaa ku yidhaahdaan. laakiin iyadoo aan balaba jirin bay shirayeen reerkoodii way isugu yeedheen. culammadoodii iyo waxgaradkoodii iyo waayeelkoodaba way isu yeedheen. war waxaa diintu ma ogole maxaynu ka yeellaa baa la isweydiiyey. maanta aan xeer ka dejisanno daynu hore xeerar u soo lahayn dee kuwaaba raggunbaa soo qoray waxay doontaba ha noqotee qalad iyo sax waxay doontaba ha noqotee. waxaynu maanta ka yeellaa waxay go'aansadeen wixii ilaahay uu inoo soo dejiyaan ka yeelo. way ku dhaqeen. reerkiina wuu wada qaatay. odayna kuma qasbin, cidina kuma qasbin. ee waa talo reer gaadhay oo intuu reer tashaday ay gaadheen inay qaataan wixii ilaahay uu jideeyey. la yidhaahdaa agoonka yar soomaali maalan dilku ma dhammaado. sababuhu dhammaan waaye xeerkan baa ka mid ah. inanka yar ee aabbihii la dilay ama walaalkii la dilay ee odayaal intay fadhiisteen yidhaahdeen ninkii waa cafinay isaga waxba la weydiinin ama la jajuubay ee magtii markii la qaatayna la yidhi adiga 2 halaad baa kugu soo hagaagay. aabbihii ma 2 halaad buu kaga sabrayaade. soo maaha unu sida intuu ama ka qaan gaadhayo ama mid cidla maraya uu ka helayo uu sugayaa.
waxaanay aanadu u dhammaan weyday iyo dilkani u dhammaan waayey waxa weeyaan dee qofka waynu jujuubno qofna mayna sabirsiinin laba midun bay ahayd inaynu qofka qisaas u ogolaanno oo yidhaahdo aabbahay ninkaas waa dilay ha loo dilo oo qisaas aqbalno iyo wuxuu ku sabra inaynu siino nidhaano war boqolkaa geela kaxayso waad iska badhaadh iyo cafi dadka oo markaa uu arko dee nin aabbihii calalaqal ha waaye u haystaa laakiin geela reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha geela reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha wuxuu ku sabraa markaa meesha ma yaaliin waxaan aanadu inooga dhammaan weydaan waxaan wax ka saaraya xeerkeennan xeerkan aynu ku dhaqmayna inuu yahay waxaan aanadu u dhammaan weyday qoysna u sabri waaye 40 sano ka hor mid la dilay uu leeyahay reer hebel baa dilay reerkeegii marka laba mushkilaad taagano kii reerka ninka ka dilayna wuu dulmiyey tolkiisii magta ka qaatayna waa dulmiyeen labada qolob waa ku dulmiyeen kii abaha dilayna ku dulmi wixii laga qaatay kuwii ku diidayna dayna ku dulmiya agoonkana laba jeer buu markaa dulmay marna reerna abihii buu dilay reer xoolihiisii buu qaatay marka waa laba jeer oo dulmiya idan waa laga yaabaa dadkiina halka fadhiya iyadoo sidaa loo qaybsano inaydan ugu timaadeen oo inaydan xeerarkan idinku dejin laakiin dee rag baa tihiina xeerka waa la bedeli karaa reerkii xeerka lahaana waa loo talin karaa waana la shirin karaa diinna waa qaadan karaa maan arag anigu dad soomaaliyeed oo meel isugu yimi oo wanaag ka shiray oo isku diiday maan arag dadku hadduu wanaag ku shirayo oo markuu shiro isugu yimaado laakiin iyadoo dhibtu taagantahay haddaad shiriso waa mushkilad iyadoo nabadu taagantahay roonta intaad shiriso inaad tiraahdo war waxaa berri maxaynu ka yeelnaa xeerkeennii hore kaasoo ahaa diintiina saasay sheegtay maxaynu ka yeelnaa inay isweydiisaan dadku wuu qaadanaya kaasi waa qodobka hore uu tilmaamay sheekhu qodobka labaad ee uu sheekhu tilmaamay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira erayo anas ibnu maalik uu leeyahay khudbad kasta uu nabigu jeediye wuu jeedin jiray khudbad kasta oo nabi maxamed noo jeediye buu yidhi weedhaha kama tegi jirin laa amaanata laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah nabigu wuu yidhi mar kastoo khudbadaynaya wuxuu odhan jiray iimaan ma laha ciddii ammaano lahayni diin ma laha ciddii aan ballan lahayni ayuu nabigu nagu odhan jiray buu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ammaanadu way kala weynti ammaanada maamulka ugu weyn cibaadadeeduna waa ammaano ilaahayna saaray oo laynaga rabo inaynu gudanno xoolaha bini aadamku waa ammaano laakiin maamulku nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة هذا أمانة لنطو قيامه هناك بالنبوي مرة سيدة إليه رسولك سيو ضيع مساء إذا وسد الأمر إلى غير أهله ونوه تلهم أمانة واحد ضيعته مدان مضنين مرة ثلاثة الله سيئة ضدك مدح لو قدوه ما أنت الصومالي يسي شيخ شيخي يدكم بمدحوها haddaad adigu tuug soo saarto iyo mid wax boobaya aakhiraadna waa lagu qabsanayaa waayo adaa boobka ka markhaati ah adaa rabay in wax la boobo minaadaadba xoolahaagu u dhiibateen haddaad tidhi xoolaha ummadda ha loo dhiibo adigu maad u dhiibateen waxaaga ilmaadeer waatiin tol waatiin isku reer waatiin laakiin waxaaga umaad dhiibateen laakiin waxaad ogashay waxa ummadoo dhan in loo dhiibo dee waa laba tuugu maateen waa tuug iyo tuug kalkaal waa laba shaqada waa wada wadeen weeyaan runta markaynu isu sheegno haddaynu inagu daacad ka nahay dadka samahiisana doonayno waa samayn karaynaa waayo dadkaynu xilka keennaa dee rag ordayo hunguri wada waa kuu imanayaan waa hubaaltaas mid lacag sita waa kuu imanaya mid ordaya waa kuu imanaya laakiin aday ahayd intaad reerka eegta inaad tidhaahdo warkaasaa ugu daacadsan oo ilaahay dartii dadka u cadaalad samaynaya cadaaladu wayna wada gaari lahayd marka caqal walba hadduu kaa keeni lahaa soomaaliya way kici lahayd waa kufte waa kici lahayd
cadaalad baana ina deeqda kani wuxuu soo boobaadna wax ku tari maayaan laakiin innaga waxaa ammaan noqotay tuuganimada sadaraadeed in la yidhaha ninka hebel wallaahi 2 sannadood buu dee meeshaa ka shaqeeyo reerkiina guri buu u dhisay yararkiina jaamacad u diray waa tuugo waxaad ku ammaanaysaa xataa labada tuugo ta qofka caadiga la xadaba ka fiican waayo ka qofka caadiga la xadaba wax laga yaabaa inaad wixii soo celiso inaad tiraa wariyo cafi bari baan waxaad leedahay taabtay 10 milyan oo qof wuxooda haddaad xadaa akhiraya kaa saaraya 10 milyan oo qof oo agoon iyo mid jaban iyo mid indhala iyo mid baaba'san bale ilaa 10 milyan bay intay ka dhaxaysay 10 milyan wuxood qofkii qaatay akhira si uu badbaadaya yaa cafinaya adiga waxaan ku yeelaa ama kaa qaato waa ku soo badheeri karaa wariyo si kay cafi waa ku celin karaa si uun baynu wada xaajoon karnaa laakiin 10 milyan oo qof wuxood hadday kugu tageen إلهنا وحوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة عدي وحضاه غلول قوة حوله لو ذليه هي عدة وحكا حضاه أما فيقية جهات كهذا أما مالك بيت المسلمين كهذا ما حد وراده ومن يغلل با إلهي عدي وحضاه يأتي بما غل يوم القيامة وهذا توجد الدوينه tuugada kale way ka gadisantay wuxuu imanaya wixii uu xaday isagoo tuurta ku sida qiyaamaha kontonka sane dadku uu taagan yahay banka qiyaamada la isxisaaminayo hadduu awr xaday dushu awrku ka saaray isagoo qaylinaya waliba waxay dhahdaan xadiidku wuxuu sheegayaa awrku isagoo cod leh cabaadaya waayo dadka la rabaa in la tusiyo yowma alcardi ceebtiisu inay muuqato kii dhul xaday isagoo dusha ka saaran loo imanaya 7 أرضين يضو دش كسارة وها علامة أبا يدهدين قف كستو توغا نوع عاسية قلي يسوغو تورتو كسيطيرو يمادو وحنلاقي مركها والصومالي مدي بدنا رتعتي لشيء ودوني الله يوحك جرا مدي بدنا لكن لبع عباد بينو لأنه فرسمين كرويني لبع عباد بينو فرسمين كرويني بيلانه عبتها قبيلك قصاب سيسان هدي الوراوح صدر ميدو حبوبي كرينا ميشي جينيس هدي اللي نيرادا عدالة سماه طلقة إنا قرية قردك بوهي لسو وأنكو دلقا صومرين حانا يحيد إنو عدالة حقا قبلو طلقة أنا إنا دو عدالة سميسو دقة كلام مسلم كان إنا دو عدالة سميسو هدينو قبيالات حلو هلو أما مكتئد هالنقطة أما حيركيد هالنقطة أما سيو حقي بسنة هالنقطة أما عدالة رادين تيد هالنقطة هدينو حلو هلو سوالي حلوة وهلينا كلا بعضنا ومد وضيدي هورين تهسي حلو رادين ينكو صابيري هو بالود بالودو dadkii hore way inaga waxyar way inaga adduun yaraayeen Soomaalida maanta joogta ka adduun badan Soomaalida hore odayaal waaweyn oo Soomaaliyeed baan xabsi bari ku wada jirnaa sheekeynay marka waxa ka sheekeynay magaalooyinku say ahaayeen iyagoo ciyaal yar in garow baa la karin jiray bay yiraahdeenoo fuudka garowga ka soo hadha ayaan weydiisan jirnay kuwa hudheelko fuudkaasay dooxa nagaga aasi jireen bay yiraahdeen fuudka xataa noo diidi jireen fuud garow ayay naf bidayeen Soomaalidu maanta xoolo badantay maanta maalay ka xoolo badantay ma jirto in kastoo problemaysto laakiin Soomaaliga hore cunada ceeb buu yaqaan aqoonadna gaajo ka doorbidi jiray isagoo baahanna wuu seexan jiray ninka waayeelka ama ninka waxgaradka ama qofka magaca leh isagoo waxba afka saarin cunaduna kuma badnayn oday Soomaaliyeed odayadii Soomaalida ka tiri jiray waxa la sheegay oday baa ku yiraahday suuq gamaad iska deysay doonkaas ugu yiri hebel nin la yiraahdo oo reer hebel u ahaa odaygooda bisha Ramadaan buu ugu yiri bisha Ramadaan oo dhan laba wasaladood oo hilib iyo 8 koob oo suuq u cabi jiray buu yiri shanayta hore neef u qali jiray wasalad buu ku cuni jiray inta ku xigta koob suuq u cabi jiray markaas koob suuq u cunay intuu ka dhigtay iska seexanay ama dan kala hay oo soomay
waxaan uga dan leeyahay iyadoo baahidu taallo ayay dadku asturnaayeen. hadda bini aadamkii baa wada baahi laga dhigay, balwadaa inoogu darsamay. balwadaasi waxay keensatay qofku wuxuu haystaaba inaanu ku filayn, wax kastoo agtaada yaalla inaan ku filayn. waxaa laga yaabaa maanta lacagta moobiilka aynu ku bixinaa inay reer masruufi jirtay 30 sano ka hor, 40 sano ka hor. lacagta maanta aynu moobiilka ku isticmaalno, kharashka moobiilka aynu ku bixinaa inuu reer masruufi jiray. dadku markuu wada baahi noqday, isla markaana dhaqaalo ku filan baahidan oo dhamme aanu jirin, waxaa batay laaluushkii iyo musuqmaasuqii iyo wax isweydaarintii iyo ammaanad darradii iyo waxa kan. waxaa inagu sii daray maanta khamri, qaad, xashiishad. soomaaliya wax walba hadda waa cabtaa. waagii hore soomaaliyin yar baa waxaan cuni jirtay. anigu waxaa soo gaadhay magaalooyinka waaweyn ee soomaaliyeed oo 3 laan loobar yimaadaan. 3 laan loobar buu qaadka gobolka Burco oo dhan soo gala ayuu ahaan jiray. maantana waddada markaan maro dhowr iyo 10 gaadhi oo tareella ah bay dhaafo qaad sida. waa 2-3 saacadood aan meesha sii socdo, intii waaga intaanu beriyin martay iyo inta galka dambe maraysa waxa marka laga yimaado waxaana Soomaaliya cunaysaa. meelibana meeshay galbeed ka sii xigtay kaga sii badantay way soo dhaafto. hadda magaalooyinka qaad cun yar, baadiyaha xun. kulli gobolada aan ka imi baadiyaha ka liita magaalada dad badan oo waayeel oo waaweyn oo waxgarad oo aan qaad cunayn baad arkaysaa. magaalada waxaa laga yaabaa dhallinyaradii jaamacaadka oo dhan oo intooda badan aan qaad cunayn baad arkaysaa. laakiin baadiyaha 80 jirku u qayala oo sigaarku cabaa. dhallinyartoodiina khamriga cabtaa. geelasha khamri lagu hor cabaa. geelasha Soomaaliyeed baa khamri lagu hor cabaa. dhul badan oo Soomaaliyeed leedahay qayb. waxaan uga dan leeyahay markaa xumihii wuu soo kordhaya, iyadoo baahidii sii badanaysa haddana xumihiina soo kordhaya. balwadu hadday meesha timaado controlkuu lumaya. markaa dad wax booba iyo dad wax hada iyo dad wax dhacay way qofkii balwada ka dambaysa. balwadahana dee dadkii idinkaa u madax ah sidii loola dagaalami lahaa ee loo joojin lahaa ama loo yarayn lahaa. horta dee waxa qudhay lagu joojin karaa waa diin. dadka hadday diini gashana wuu joojin. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam askar ma qoranin, xabsiya ma samaysanin, waxba ma samaysanin. carab oo khamri ka dheragtana wuu yimi. 15 sannadood ee horena way cabayeen ee islaam la ahaa. 15 sannadood oo islaam layay oo la tukanayo oo la soobayo haddana cibaadaadka labada haddana khamriga la cabayay waan la joojinay. laakiin mar quraa la yidhi ka fogaado iska daaya, dabeetana eraygaasaa ku filaaday. askarna looguma yeedhin, cidna looguma yeedhin. dadka haddaynu diin geenino oo waxbarro oo iimaankooda xoojinno, balwaddan waynu celin karaynaa. waa celin karaynaa. haddaynu dowladda ha ku taageero waa yarayn karaynaa. qaanuunku wuu yarayn karaa una ma joojin karo. waayo waxay yidhaahdaan shay market leh inta shay suuq haystaa, intuu suuqu jiro cid keenta la waayi maayo. haddaan maanta labada ugu waaweyne keena ama 3da ugu waaweyne magaaladiina jooga haddaa isugu nimaadno waayeelyo aynu wacdino oo yidhaahdaan waa ka baxnay, 3 kaluma keenaysaa. waayo suuqii baa jira. meesha waa inuu suuqu go'aa oo kan hadduu iska daayo ku dambe xataa hadduu keeno waa inaan suuq jiraynin. siduu ku joogsan kara waa sidaa. waa inaan suuqu jiraynin. maaha qof iyo 2 iyo 3 dan oo qura. waa inaan suuq dadkii ahaa customerska, zabuunka, dadkan gadanaya waa inay joojiyaan. markaasuu suuqu engegaya. dadkanina waxay ku joojin karaan dee haddii wacdi iyo diin iyo tale iyo caqli iyo wax ku kordhino. haddii uu u muuqdo inuu ceeb yahay, xataa waxyaabahan ka yaabay waxaa ka mid ah galbeedka, nimanka reer galbeed, dadka droogooyinka isticmaala waa dabaqada hoose. bulshada inteeda mudane hadday droogada iyo waxaan isticmaashay way ceebowdaa. markaa waynu shaqadoo dhan ka tagaa. waa ceeboobaa. innaga imika wuxuu u soo socdaa
bulshada inta mudane inay cunto oo reerka haddii suldaanku qayilo ama madaxweynuhu qayilo ama sheekhu qayilo inta kale maxaad ka sugaysaa marka يعني دتك أما تاجر كأنتي وحيس أنتي دتك إيجانية هذا يدو قيشوا ورنت يريري يسكت هي ده عقلك جالي ميس وإن دتك أنت مضاني أي فراك قاطع مركزا أنت يريرنا لسي وعدي كرا وحي خاصوص إذا دعي كرا ددوا وين ملات المامون باقوف لنا هذا البضاني بكر بين مايو دور علماءنا waa ku hadalnay waxaan ku soo koobayaa xil ballaadhan baa idin saaran ilaahay idin fudaydiyo dhibaha dadkeena haystaana ma yaree ilaahay naga kor qaado laakiin dadkii wuxuun samayn kari lahaa ma dhibtaa yarayn kari lahaa waa innaga oo kaashana ilaahay sharcigiisa iyo dadkaynu u talino waa inu talada wax ka siino la wadaagno wanaagga ugu yeedhno way aqbali doonaan haddaynu inagu noqono kuwa wanaagga horseedaya